anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare waxaa sharaf inoo ah inaan soo dhoweyno maanta oo inoogu yimaado aqalkeenna madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xubno la socdaan oo ka tirsan galmudug maanta halkan inaan ku soo dhoweyno sharaf bay inoo tahay mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor aan ku soo dhoweyno iyo wafdiga uu hogaaminayo sharaf bay inoo tahay anuu hadda khudbo dheeroon meeshan ka jeedinayaa ma jirto mudane madaxweyne aqalkani waa aqalkii dadka waaweyn odayaasha iyo dhinaca kale kolkaad fiiriso dumarka waaweyn waxa weeye waa aqal inagu cusub oo dalkeenna ku cusub laakiin muddadii uu jiray oo ah hadda 4 sano oo dhadhow aad buu u dadaalay wax badan buu qabtay oo ah inuu itijaah sameeyo oo uu ka tago waktiga intan waktigoodii waa gebagabo laakiin raad inuu aqalkani ka tago berri dadka matali doonaa ee magaca aqalkan ku shaqayn doonaa ay raacaan aqalku wuxuu ku dadaalay inuu shuruucda dalka oo aynu ognahay in weli wax badani ay dhiman yihiin sidii loo hirgelin lahaa wuxuu aqalkani isagoon awoodba lahayn dhaqaale iyo baaxad guritoona uu ku dadaalay labada guddi ee inoo qaabilsan samaynta dastuurka oo ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka inuu siiyo wixii fursada uu heli karay oo ah inuu xafiisya siiyo ay ku shaqeeyaan waxa weeye taana ujeeddadan ka lahayn waxa weeye dastuurkani inuu noqdo dastuur la dhammaystiro inkasta oo uu noqonayo dastuurku meel gaara haddana waxa weeye inuu noqdo ayaan u baahnayn dastuur yacni dalkan lagaga shaqayn karo mudane madaxweyne aqalkani wuxuu u taagan yahay nabadda iyo midnimada soomaaliyeed markaas waxba anugu ku dheeraan maayo maanta adigaa warbixin kaa sugaynaa waxaan ku leeyahay ku soo dhowow aada iyo aad baad umahadsan tahay idinkuna waa mahadsan tihiin sidaad uga soo qayb gasheen mudane madaxweyne ku soo dhowow